wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal oo muddooyinkii u dambeeyay socdaal shaqo ku joogay magaalada Cirigab ee xarunta gobolka dalxiiska iyo awiyasha Sanaag ayaa waxa wasiirku uu saaka kormeer ku tagay isbitaalka weyn ee degmada Cirigab oo ay wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ay ka hirgelinayso mashruuc solar waxaana kormeerka wasiirka ku weelinaya barsaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan isuduwaha wasaaradda macdanta iyo tamarta ee gobolka Sanaag iyo waliba agaasimaha isbitaalka weyn ee degmada Cirigab intaasi kadib markii kormeerka wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay agaasimaha isbitaalka ee degmada Cirigab iyo waliba barsaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo waliba wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal iyagoo faahfaahin ka bixiyay mashruuca solar tahay wasaaradda macdanta iyo tamartu ka hirgelinayso isbitaalka weyn ee degmada Cirigab waxaan soo dhaweynaynaa wafdiga ka socda wasaaradda tamarta iyo macdanta uu hogaaminayo wasiirku waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda qalabka solarka isbitaalka lagu rakibay oo ay hawl weyn ka gashay kaasoo isbedel weyn ku sameeyay hawsha isbitaalka markii hore waxaanu isticmaali jiray dabka magaalada oo lacag ah bishii waxaana lagu soo dilici jiray ilaa lacag $600 iminka wuxuu noo baxay habeen iyo maalin isagoo aan wax shilin laga weydiinayn arintaasi waxa weeye guul isbitaalka soo hoyatay iyo gobolka iyo wasaaradda intaba mashaariicdan gobolka ka socota shalayna aaday dhinacan xeebaha saakana nala jooga Cirigab oo ku soo dhaweynaa wasiir mar walba ku soo dhaweynaa gacan far baan ku soo dhaweynaa adiga waqti kula socotaba hawsha mashruuca solarka sistemka solarka ee dhakhtarkaad ku rakibtayna waa wax aad iyo aad noo anfacay run ahaantii oo aanu kaga raysanayno waxyaabo badan oo aanan taali karayn markana lagu soo dalaco lacag badan ee karabada leerkuna uu shidnaan jiray waqti kooban shidnaan jiray haddana uu yahay day and night oo habeen iyo maalin noo baxayo oo waxba aanay nagaga xumayn aad iyo aad baanu run ahaantii hawsha isbitaalka iyo gobolka iyo degmaduba waxaan imika u soconay oo halkan isbitaalka u soo maray waxa weeyaan kormeer aanu eegno bal sida ku dhamaatay shaqadii laga waday isbitaalka ee ahayd dibgelinta dabkaasoo aan ugu talagalnay in uu solarka noqdo oo laga maarmo solarkii dabkii magaalada oo ku joogay dhaqaale kharashka ku joogay isbitaalka kaasoo laga yaabo maanta mar haddii ay u baaqatay lacagtii kaga bixi jirtay leerka waxaanu ka filaynaa maamulka isbitaalka inay u adeegsadaan horumarinta kharashka kaga bixi jiray u baaqday inay u adeegsadaan tayeynta iyo horumarinta adeega caafimaadka ee gobolka taasaa ujeedadu tahay taasaa siyaasadda xukuumaddu tahay in xoogga la saaro wixii horumarina lagu sameynayo adeega bulshada hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay wadooyin haddii ay tahay imika wadda la wadaa wata laga wado ee meesha la yiraahdo dekadii baa la dhisayaa wax soo saarkiibaa isaguna aanu ka dhimiyo Adnaan Cabdirashiid Ali telefishinka caalamiga ee Kalson TV Cirigab